daawadayaal hadda waxaa barbarkeyga ila fadhiya boqor Axmed Iimaan Warsame oo kamid ah boqorada waaweyn ee Soomaaliland. ugu horeyn boqor maalmihii dambeysay waxa baraha bulshada si weyn u haystay safiirka dawladda Ingiriiska u qaabilsan arrimaha Soomaaliya iyo Soomaaliland. safiirkaas sidoo ku tagay sidoo ku geeysan xaafadda Daami iyadoo ogeyn dawladda. bismillaahir rahmaanir rahiim. aad ayaan anigu qudhadeedii ka mahad celinayaa inaad magaalada Awdal igu soo dhaweysaan iguna weerarsataan. waxaa jirta waa runta safiirka Ingiriiska arrimaha u qaabilsan Soomaaliya iyo Soomaaliland inuu xaafadda Daami lagu soo booqday inuu yimid iyadoo xukuumaduna ogeyn. marka kullayba dee arrimo annaka naga dhaxeeyay oo dibadda ka yimid oo xiriir aan lahayn oo ilaa dibadda socday uu ku yimid iska muhiim waxaana aan rajaynaynaa in ay iman doonaan oo daba socdaan wafdi ka culus isaga oo international community cid walba iskugu jirta oo xaaladaasoo indhaynaysa waxaana ay ula xiriiraa socdaalkan barigii dhaweyd ku tegay Switzerland. arrimihii aanu kaga hadalnay ayaa la soo xaqiijinayaa wixii ka jira iyo moogtahay dacbashada ayadii inay dhabtahay inaan ahayn. marka aduu nuxurka haddaan kuu soo duuduubo Soomaalidu hore uga gabayday waxay tiri muslimnimo nimaan kugu dhaqayn muuminnimo khaasa gaal maxaasta kugu dhowrad magasataa dhaama. marka taas waxay cadeynaysaa ninka ka yimid qaaradda Yurub ee intuu Daami loogu dhex yimid caruurtaayadii yaryareed ee haysatay dhibaatada xag waxbarasho xag caafimaad xag duruufo badan ay haysteen madaxa Daami dhexdeeda ugu salaaxayay. deedan wuxuu uga naxariis badan yahay madaxtooyada noo jirta 500 kiiloomitir madaxweynihii u dhaartay ummadda reer Soomaaliland inuu cadaalad ku dhaqayo inay ummaddu iskugu mid tahay Soomaaliland ee isagu kari waayay inuu Daami maadee ka baqaya hadduu Daami tago inuu ku dhacayo cudurka Apollo ayuu adeer noo dhaamagaas. marka waxa weeyaan arrimo badan ayaa moogtahay aanu ka wada hadalnay. arrimahan ka wada hadalnayna dee isagu waxna badan indhiisu ku arkay waxaan sheegnay in xaqiiq tahay uu arkay kalamaanaanu hadal oo qura daxafada Daami. laakiin waxaanu kala hadalnay Somaliland inay u afduuban tahay askar madaxweynaha askariya wasiirka arrimaha gudaha janankan imika loo magacaabay booliiska jananka asluubta guddigooda waa ciidamada booliiska iyo maayarku imika isaga ma loo geliyay tuute oo qofkii hadlaba la wan xidhaya maayar sootika halka marka qofkii yiraahdo magaaladu war xashiishkan inaga guro wadoonka noo sameeya isaguna tuute xidhan oo isaguna askartu ku biiray ayaan adeer kala hadlinay deeqahay soo bixiyaan meeshii lagu talagalay inay gaadheen in sanduuq gaar ah ay ku baxdo indhiisna uu ku arkay xafadu sidoo dareeysan tahay balayadu arkay dhibaatadu arkay wuxuu arkay xashiishka laga soo qaaday magaalada Hargeysa oo dhan in Daami xarin loogu dhigo lagu daadiyo arkay intaas oo dhan wada arkay. boqor arintan aad sheegtay qarannimada Soomaaliland dhaawac weyn ku hayn. Soomaaliland aniga cidnayga ma la jecel badnaa waxa aad ka war haysaan oo adduunka oo dhan ka war hayaan astaanta Soomaaliland calanka Soomaaliland in meel raggan maanta fadhiya iyo kuwii ka horeeyay u soo shaqo tageen baan leeyahay dad madax wadanka ka naxaysa maaha. aniga oon wasiir ku lahayn aniga oon ku lahayn DG aniga oon gudoomiye ku lahayn aniga oon xog hayaasha wala dawladda hoose wala baarlamaanada midna aan ku lahayn anigoon janana ku lahayn ayaan haddana qarannimada Soomaaliland anigu astaantii aan qaramada midoobay dhaxdhigay oo ku doodeen in Soomaaliland ixtiraaf hayso. marka qarannimada iyo way kala baxsan tahay tan corruptionka wadanka lagu hayaan kaga hadliyay ee qarannimada Soomaaliland kaga hadleen taas waa lama taabtaan cid walbana ana uga leexsocdo badan ictiraafkana aan waxaan qabaa in annagu aanu keen karno
laakiin dadkan kulba intaasoo malyan ku qaadanaya wasaaradda arrimaha dibadda ka soo shaqaynaysa inayna waxba u qabaneen ayaan anu qabaa laakiin cidda ixtiraafka keeni kartaa wadanka u damqanta inaan anu ku nahay baan qabaadeen ugu dambeyn boqor maanta waxaa ku sugan tahay magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal sideed u aragtaa magaalada Boorame su'aal aad iyo aad u fiican waan ka raagay Boorame laakiin aad iyo aad bay isku bedeshay waxaan arkay wadooyinkii waama ku qaldamay shalay markaan soo mariyay laamiyada ugu weeyaan arkay oo la isku dhaafeen waxa kaloon arkay xafadii go'doonka ka ahayd hayayaab oo biriisha loo sameynayo waxaan arkay magaaladii Booramo nadiif oo xashiis lahayn sida anaka magaalada ay caasimada ah yaa adduunka cid aragtaaba ay la yaabto marka aad iyo aad baan uga kelmadan kaga faa'iideysanaya waxaan uga mahad celinayaa maayirka magaalada Boorame Suleybaan oo isagu shaqadiisa ka soo baxay isaga iyo maayirka Berberaba anigu waxaa la igu tiriyaa inaan ahay xisbiyada mucaaradka ka soo jeedo laakiin wixii wax qabada ama dawlad ay qabato ama maayir ay qabtaan waa nagu waajib inaan sheegno mucaaradkuna waxa weeyaan wuxuu butoosiyaa laakiin Boorame iyo magaalada Berberaba maayiradoodu way u shaqeeyaan ummadda way u adeegaan cashuurta ummadda ka qaadaanna dib bay wadanka u galiyaan marka nin walbana taariikh baa ka hadhisa waana ugu mahad celinaa maayirka Boorame iyo maayirka Berberaba sida cashuurta muwaadiniinta ay ka qaadaan ay dib ugu soo celiyaan ay u galiyaan aad iyo aad bayna ugu mahadsan yihiin khaas ahaan xafadaasoo go'doonka ahayd beeshaan ka soo jeedo maanta waa la isku talaabaya biriishaa loo sameeyey 30 sanadood ayay go'doon ka ahayn oo hadduu roob yar daawo oo ina cidna u geli jirin marka iyagana waxaan leeyahay war maayir wanaagsan buu ilaahay Awdal siiyey waan u duceeyo ka faa'iideysto la shaqeeya